Öncelikle Sayın Bakan ve ekibini Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum. Göreve yeni başladı Sayın Bakan. Öncelikle başarılar diliyorum. Umarım kendi bakan döneminde çok başarılı işler yapacaktır. ugu horeyn waxaan runtii aad ugu faraxsannahay in maanta safaaradda uu nagu soo booqdo wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha iyo tiimkiisa runtii farxaday noo tahay anoo ka faa'iidaysanahay fursaddan yaa waxaan u rajaynayaa wasiirka iyo tiimkiisaba guul. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği geziden sonra Somali kardeşlerimize çok derinleşen ilişkilerimiz var, işbirliklerimiz var. Bunlardan en önemlilerinden biri de güvenlik alanında şimdiye kadar yürüttüğümüz işbirliğidir. Laga soo bilaabo 2011kii kadib booqashadii madaxweynaheena ee Soomaaliya uu soo booqday waxaa jiray iskaashiyo dhinacyo badan taabanaya oo ka dhexeeya waddankeena iyo waddanka Soomaaliya. Iskaashiyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah iskaashiga aan leenahay dhinaca amniga. Bugün Sayın Bakan'la hem şimdiye kadar yürüttüğümüz işbirliğinin bir değerlendirmesini yaptık. Bundan sonra yapacağımız işbirliklerle ilgili de niyetimizi tazeledik. Wasiirka maanta waxaan ka munaaqashoonay ama aan ka wada hadalnay iskaashigaas dhinaca amniga ah iyo sidii hadda iyo wixii ka dambeeyana aan u horumarin lahayn. Biz işbirliğini geliştirmeye her zaman hazırız. Sayın Bakan da bu konuda gerçekten çok destek olacağını ifade ettiler. Bu da umuyorum önümüzdeki dönemdeki işbirliklerimizi daha da ivmelendirecektir. Annagana waxaan diyaar u nahay in aan sare u qaadno ama aan xoojino iskaashigaas dhinaca amniga ah. Wasiirkana sidoo kale wuxuu nala wadaagay inuu asna dhankiisa diyaar u yahay in wixii kaalin ah ama taageero ah uu ka geysto. Waxaan rajaynayaa in xilliyada soo socda waxaa waaye ay uu arrinkaasi muuqan doono iskaashigaasna uu sii xoogaysan doono. Kardeşlik temelinde şekillenen ola gelen işbirliklerimiz inşallah önümüzdeki dönemde daha da zenginleşecektir. Türkiye her zaman Somali kardeşlerin yanında olmaya devam edecektir. Xiriirkan ka dhexeeya labada dal ku salaysan walaaltinimada waxaan rajaynayaa in uu sii xoogaysto. Dowladda Turkigana mar walba waxay garab taagnaan doontaa walaalahooda Soomaalida. Sayın Bakan'a Büyükelçiliğimiz ziyaretinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Kendilerine ve ekibine başarılar diliyorum. Waxaan rabaa inaan mar kale wasiirka uga mahadceliyo booqashada uu noogu yimid safaaradda. Mar labaadna aan asaga iyo tiimkiisaba u rajeeyo guul. Waa mahadsantihiin.